wafdi ka socday dowladda dhexe ee dalka Kenya ayaa booqasho ku tagay xeryaha qaxootiga ee Dadaab sida uu warkaasi noogu soo diray wariyaheena Axmed Yogal. wafdi ka socday dowladda dhexe ee dalkan Kenya isla markaana ay qayb ka ahaayeen wasiir ku-xigeenka xogayaal joogtada ah iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolkan Waqooyi Bari sida xildhibaanka deegaanka Dadaab Maxamed Daahiye Ducaale xildhibaanka koonfurta Wajeer Dr. Maxamuud Omar iyo waliba sidoo kale xildhibaanka Faafi Cabdikariim Cusmaan Rati waxa sidoo kale waftigan qayb ka ahaa wakiilka hay'adda UNHCR ee dalkan Kenya iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha kale samafalka ee ka howlgala dalkan Kenya. ujeedka socdaalkan wafuudan ayaa wuxuu ahaa in dowladda dhexe ee dalkan Kenya hay'adda UNHCR ay ku wareejiso goobihii loogu adeegi jiray dadkii qaxootiga ah ee ku noolaa intaan la xirin xeryaha Ifalaba iyo waliba Kambicaws. adeegyadan oo ay kamid ahaayeen iskuulo, goobaha biyaha laga cabay ceelasha iyo sidoo kale markaasi goobo caafimaad ah. sidoo kale socdaalkan wafuudan ayaa wuxuu ku qotomay in dadka deegaanka ay uga xog waramaan waa kuwii Kenyaanka ah ee faraha qaxootiga galay isla markaana u suuroobi weysay in ay helaan sharciga dalkan Kenya ee loo yaqaan kibaandhaha in markaasi laga saari doono faraha lana kala saari doono dadka deegaanka iyo waliba kuwa qaxootiga. qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka hadashay kulanka waxa hadaladoodii kamid ahaa runtii aan joogno xerooyinka qaxootiga annaga oo doorbiday annaga oo doonayno inaan runtii aan idin muujino inaan garab idinnahay inaan idin garab taagannahay in xildhibaanadii aad soo doorateen iyo madaxdii aad soo doorateen aan nahay inaan idin soo booqanno insha Allah tacaala. waxaan rabaa inaan idin sheego ina dhiraandhiriyo howlaha xerooyinka intaanan ku laaban arrimaha faraha qaxootiga rabaa inaan idin sheegno. dood iyo dagaal iyo istaag iyo dhudhun iyo xoog intaba dhabarkan saaranay. waxaan u saaranayna waxaa weeye nin miskiin ah haddii uu baxo xabag hadduu doonto ilan xoolo uma xaraysno hadduu nin intuu baxo xabag uu doonto uu reerkiisa u soo xamaalayo waxaa suurtagala inay xoolo u xaraysnayn. ninkaa isagaa ayaa intuu soo baxay xabag ma doonan inay xarooyinka qaxootigu soo aaday in uu dadkiisii ku badbaadiyo oo barakac hoose soo maray. barakac hoose waxaan u leeyahay kama soo barakicin colaad. haddii dadka naga aamus lahayn barsad kale haddaad furan karto fadl yaraha aamus mar in yar in aad loo yimid qaxootiga la soo galay dhibaatooyin dartood adigina faraha qaxootiga aad gashay fursad xumi darteed waddanka kamida taniyo waqtigan xorriyad helnay dadkanaga fursad xumi baa haysatay dhibaatooyin badan baa haysatay meeqa dhowr iyo 50 sano ayaa xorriyad la haystaa wali sidan aan u joognaa. The registration of this Kenyan who are in the camp. I've committed ourselves. We are discussing with the donors, and together with all the stakeholders, these people will be supported to reintegrate their area of origin or somewhere in Garissa. That's why it is very important for us today to have you here. So I will stop here. war marada aas xiran yahay labada dhinac ka soo kaduudatay marada uu xiran yahay labada dhinacba ka soo kaduudatay ayaa raba dib iyo qarax iyo shiddo inuu waddanka Kenya ku sameeyo ma ogashin gacanta ay tusa inuu soo galeen gacanta ay tusa wasiirka tusa dadka dhaxda naga habeenay dharaar socdo maxaan ku sameeynaynaa war dadka dhaxda naga socdo ifo habeenay dharaar wareegana war dhagaxle wareegana war xagar dheer wareegana war Kambicaws wareegana laga yaabaa qaar waa wiilasheenna qaar waa ilma adeerteenna qaar waa qaraabadeena. wafuudan ayaa waxay nooceeda tahay markii ugu horeysay oo imaadaan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab si markaasi ay kulamo oo la qaataan bulshada deegaanka iyo waliba kuwa qaxootiga. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogal TV-ga caalamiga ee Royal xeryaha qaxootiga ee Dadaab gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.